بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألابا waxaan channelkan uga hadalnaa hanuun la yiraahdo mucjisooyinka quraanka. Maanta waxaan ka hadlaynaa mucjisooyinka quraanka qayb kamid ah. Waxana weeyaan waxa loo yaqaano chromosomes ama shahwada ama maxay ahaato nudfada bani aadamka xayawaanaadka iyo dhirtuba waxyaabaha ay ka tarmaan meesha ay ka soo farcamaan ayaa waxa la yiraahdaa jiinka chromosomka la yiraahdo oo qayb DNA-ga kamid ah. Marka waxyaabaha noocaas ayaa noolaho idil ka soo farcamaa luqad caadiga ah oo qof walba uu fahmi karo waxa lagu yiraahdaa sida annaga oo kaleeto shahwo ayaa lagu yiraahdaa. Shahwada marka quraanku ka hadlayaa shahwo ayuu ka hadlayaa. waxa laga yaabaa dadka caadiga inay xogaa ka xishoodaanba laakiin Allah subhanahu wa ta'ala kama xishoodo xaq kama xishoodo. Allah wuxuu leeyahay wallahu la yastaxyi min al-haqq. aadka rabbi wuxuu ku leeyahay inna Allah la yastaxyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. waxyaabahaas oo dhan ayaa jira. marka waxyaabahaas shahwada la yiraahdo quraanku si mubaashara ayuu uga hadlayaa toosa iyo waxyaabo fara badan oo kaleeto oo la xiriira abuuritaanka bani aadamka. وحنا الله آيات قرآن كليه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آياتها قرآنك إنه حقيها وحنك تصينا مال والبا نفتودة إي آفاق ذا معناها وحيابها نقول يكسن وجهوين كفرها بدن لها. لما آيات قرآن كريم كمذا آيا وحيك هالليان مقعاس اللي هذا شهوة شهوة وحيكت مادا رقة iyo dumarka labadaba way ka timaadaa markaas ka bacdi ayaa bani aadamku abuurmaa. quraanka badana waa la akhriyaa laakiin looma si fiirsado. waxaan isku dayaa marar fara badan intii aan karo inaan fahmo quraanka 100% laakiin waxaan qirayaa inaan xataa u dhaweyn inaan fahmo 100% iska badaa warkeedii. waxaana weeyaan runtii waan ku celceliyaa quraanku looxul maxfuudkii weeyaan oo banaanka yaala weeyaan laakiin yaa ka faa'iideysanaya ummadii ka faa'iideysaneed aawo. arrinta iyada ee shahwada la xiriirta laba aayadood oo kaliya ee quraanka weyn dhexdiisa ah ayaa ka hadlaysa. noocyada kale oo loo sharaxayo candhuuf oo kale biyo oo kale waxyaabaha noocaas Ilaahay uu ku tilmaamayo abuuritaanka bani aadamka meelaha uu ka soo farcamo magacyo kale wataan laakiin si toos ah shahwada labadan aayadood ayaa u tilmaamaysa. waxay leedahay aayadaanu innakum la ta'tuuna ar-rijaala shahwatan min duuni an-nisaa'i bal antum qawmun musrifuun. dad yahow reer qoom luut ayuu Ilaahay ka sheekaynayaa subhanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay dad yahow waxaa tihiin kuwa ragga ula tegaya ragga ayaad ula tegaysaan shahwad ula tegaysaan min duuni nisaa dumarkii ka sokow bal antum qawmun musrifuun waxaa tihiin qoom xadgudbay oo macna xadgudubkoodu saa'id noqday. aayadda kaleetana sidaasoo kaleetay uga hadlaysaa waxay leedahay a innakum tasu'aal weeyaan ma waxaad ula tegaysaan la ta'tuuna ar-rijaala shahwatan من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. لبدا آيادود ماشي ugu dambaysa way ku kala bedelan yihiin meesha ugu horeysana way isaga mid inta dhaxana waa isaga mid weeyaan rag iyo dumar ayaa lagu xusayaa shahwa lagu xusayaa qoomna waa lagu xusayaa. marka wax la yaab la weeyaan runtii bal aan maanta fiirino cilmiyada meeshan ku jira sida aan ognahay macnaha in badan oo naga mid aan la socono. saynis yahanadu waxay yiraahdaan ama dadka jiinka ku takhasusay waxay yiraahdaan bani aadamku wuxuu ka kooban yahay iyo macnaha waliba bani aadamku khaasatan 46 chromosome waxa la yiraahdo. chromosomekaas waa waxyaabaha macnaha xididada unugyada bani aadamka 23 oo kamid ah oo min laba ah oo hooyaduna 23 ay wadato aabuhuna 23 oo wato ayaa bani aadamku ka soo farcamahay leeyihiin sidaas macnaha jirta. quraankan marka eegeynaa aayadda 81 suuradda 7 rabbi wuxuu uga sheekaynayaa innakum la ta'tuuna ar-rijaala shahwatan min duuni an-nisaa'i bal antum qawmun musrifuun. muxuu yahay macnaha ay xambaarsantahay aayaddaanu. waxaan samaynaynaa waxaan tirinaynaa xarfaha ay ka kooban tahay aayaddaanu takarana sidoo kaleeto labadaas aayadood iyo shahwo ka hadlaysa. ayadan ay xarfiyada markaan tirino waxa weeyaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
toban iyo kow, toban iyo laba, toban iyo saddex, toban iyo afar, toban iyo shan, toban iyo lix, toban iyo toddoba, toban iyo siddeed, toban iyo sagaal, labaatan, labaatan iyo kow, labaatan iyo laba, labaatan iyo saddex, labaatan iyo afar, labaatan iyo shan, labaatan iyo lix, labaatan iyo toddoba, labaatan iyo siddeed, labaatan iyo sagaal, soddon iyo tobankii hore afartan, kow, labo, saddex, afar, shan, lix, afartan iyo lix xaraf ayay ka kooban tahay aayaddaanu. waxayna ka hadlaysaa shahwo rag iyo dumar way xusaysaa, shahwana way ka hadlaysaa. waxay kaloo xusaysaa qoom iyo weliba adinka, intaas ba u sheegaysaa. marka waxaan meeshan ka aragnaa ilaahay fadligiis in allah subxaanahu jala wacalaa 1450 sano ka hor uu soo dejiyey aayado qur'aana oo macnaha cilmigiisa ku salaysan rabbi subxaanahu jala wacalaa, oo u soo dhiibay nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, uuna soo gudbiyey oo noo keenay. marka aayaddan iyadaa iyo ta kaleba waxay si toosa u caddaynayaan 46 kromosom ee bani aadamka uu ka koobnay unugyadiisu ee uu ka abuurmayey iyagoo xaraf waa kan ahaa. marka waxay mucjisada taa meesha ku jirtaa. inta la ogaashaha keliya mucjisadu maahan, mucjisada ugu darana waxay tahayba sida xarfahan ilaahay u doortay subxaanahu jala wacalaa. xarfaha intaan la eg oo meelo kala gedisana, adinka dad waxaa tihiin u tegaya, shahwo ula tegaya, dumarkii ka sokow, adinku waxaa tihiin dad khariban, dad waxaad gudbay, qoom waxaad gudbay. macnaa erayada la isticmaalay ee laisku duway ee misena laga sameeyey macnihii saxda ahay ee ay ku qotantay shahwadu ayaa waxay tahay mucjiso aan weligeed la arag oo la maqal. allah markuu leeyahay qur'aanka asagoo kaleeto hal aayad oo kamid a xataa ma samayn kartaan, tanoo kale ayaa ka turjumaysa. wax la yaab la weeyaan. bal qof walboo qoraal sameey, qoraalkaasna magaca aad qorayso, waxa aad qorayso wax u dhigma oo cilmiyan u dhigma bal sameey, bal haddaad samayn karto. macnaha marnaba mustaxiil weeyaan. ereyada laysku aadiyo meesha lasoo doortay oo macnaha xaqiiqada ee diqadaa tilmaamaya ayaa mucjisada ugu weyn ay tahay. mucjisada labaad waxay tahay wixii lagu daalay kumanaanka kun ee sano waatan ahaba iyadoo sahlanba meel dhowba taalaaba. marka waa arrin la yaab leh wey. cilmi fara badanaa ku jira. aayaddan xarfaheedu waa 46 xaraf. midda kalena waxaa weeyaan suura namli aayadda 55 waxay leedahay ainakum, alifkaasa ku siyaadaa, inta kale way iskala eg yihiin. labada jumlo ugu dambaysa way kala duwan yihiin, laakiin waa isku tiro 6 xaraf ayay tiiba ka kooban tahay. 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 ayay ka kooban tahay. wax la yaab loo kala weeyaan misna. wax macnaha wax laba jumlo kala gedisan, su'aala la soo geliyey, wuxuu dhan la soo geliyey, misna waxay isla eg yihiin oo isku sidii weeyaan. marka tan halkaas alif ayaa ku siyaadaha oo 47 ay noqonaysaa. macnaha meesha ku jira dadka iga aqoonta badan oo dhakhaatiir macnaha cilmigan jinka dadka ku takhasusay, runtii uma takhasusin anigu aqoon saasana uma lihi, waxbaan akhriyey mooyaane. dadkaasu meesha oo islaamka meeshan cilmi fara badan ay ka dhuuxi karaan, ay kala soo bixi karaan. waxaan isleeyahay anigu fahamkayga waxaa jira bani aadam ku dhasha 47 jiin ama 47 kromosom ku dhasha ayaa jira, ayaan isleeyahay anigu. wallahu aclam xaqiiqada. haddaan si khalad wax u fasirayana ilahay baan cafis weydiisanaya subxaanahu jala wacalaa. meesha marka cilmiye fara badan ayaa ku jira. labada qayboodba waan aragnaa, midna waa 47 midna waa 46 weeyaan. halkaas xabo ayaa u cadli falaya. halkaa xabo wallahu aclam waxaa laga yaabaa aabbaha inuu matelayo, oo aabbaha waxaa la yidhahdaa dominate a mar walba oo ka xoog badan kromosomka hooyada. waxaa suuragala inay sida ilmuhu ku dhashaanba. macnayaal fara badan ayay samayn kartaa oo meeshan laga arki karaa. marka xigmado kaleetoo fara badanaa meeshan ku jira. meeshan waxaa laga arki karaa shahwada naftirkeeda, culayskeeda, miisaankeeda, cabirkeeda, waxyaabahaasoo idil ayaa meeshan laga arki karaa. sababtu maxay tahay? aayadaha nambarkooda, qur-aanka habka aayadaha loo saaray iyo suuradaha sidii laysugu aadiyey. qur-aanku wuu tiro badan yahay, laakiin allah wuxuu doortaa suuradda 7 aayadda 81 ayuu doortay, iyo suuradda 27 aayadda 55. marnaba caadi maahan. marka bal aan fiirino cilmiga kaleeto kusii jira meeshaan. xisaabtan nambaradaas oo aayadda nambarkeeda iyo suuradda nambarkeeda ayaan midba mid u qaybinayaa. waxaan leeyahay 7 loo qaybiyey 81 ayaan leeyahay. waxaa soo baxday tiro ah eber 86 ayaa soo baxday. oo wax cajiiba. markaan haddaan u bedelno micrometer waxa la yidhaahdo, ama centimeter ama millimeter waxa la yidhaahdo, waxay noqonaysaa 12 loo qaybiyey maxay ahaato 1 millimeter, ama u dhiganta 86 micrometer waxa la yidhaahdo. 86 micrometer.
runtii culammada saynisku waxay yidhaahdaan macnaha waxaan shahwada la yidhaahdo ee aabbaha ka yimaada iyo weliba aabbaha ka yimaada oo shahwada la yidhahdo ama spermka la yidhaahdo spermku wuxuu u dhigmaa halkii xababa cabirkiisu halkii xabo canuga noqonaya wuxuu u dhigmaa hay yidhaahdaan 0.5 ayuu la egyahay cabirkiisu macnaha ama 50 micrometer annaga laakiin waxaan helnay 86 micrometer 36 micrometer siyaada ayaan ka helnay ayaga marka estimation ay sameeyaan oo waxa weeyaan wax la hubo maaha 100% inay noqon karto intaa suuragal in fasirkiigu qaldan yahay suuragal in ayagu qaldan yihiin suuragal oo nimanka meeshaan wax ku soo qoray ay qaldan yihiin laakiin ayada quraanka sax weeyaan 100% marnaba mar walba waa sax weeyaan waxa noo soo baxday intaas noo soo baxday okay waxaan tegaynaa qaybta kale ayaan tegaynaa oo 27.55 ah waxaan raadinaynaa sidoo kale 7 ayaan waxaan u qaybinaynaa 55 markaas waxaa ka soo baxday 49.9 almost 50 ayaa ka soo baxday nus millimeter waxa la yiraahdo ayaa ka soo baxday nus millimeterkan muxuu yahay macnihiisu waxa la yiraahdo ukunta hooyada dad fara badan waxay u maleeyaan ukunta hooyada inay leeg tahay mid digaag oo kale inay leeg tahay wax noocaasa runtiina saas maahan xaqiiqdu sidaas maahan ukunta hooyada waxay leeg tahay xabad carraa ay leeg tahay xabad carraa oo carra xeebeedka ay leeg tahay aad ay u yar tahay markii laga reebo waxyaabaha ku wareegsan ee biyaha iyo waxyaabaha noocaas oo ku wareegsan waxa weeyaan wax aad u yar weeyaan runtii waxayna ku sheegaan inay tahay 1 millimeter annaguna waxaan helnay 0.50 millimeter ayaan helnay half ayay ka yartaa midaan helnay taan helnay half yar wallahu aclam xaqiiqada marka macquul in shahwada dumarku ama maxayat ukunta hooyadu ay intaas la eg tahay macquul weeyaan in fasirkiigu qaldan yahay macquul weeyaan laakiin meeshan cilmi weyn ayaa ku jira oon ku dhiiri gelinayo dadka aqoonta u leh oo bartay cilmiyada noocaas oo kaleeta dhinaca kale haddii aanu bedelno oo aan idhaahno 55 loo qaybiyey 27 waxaa soo baxay 2 labadaas anigu waxaan is dhihi lahay imaa waa mataano oo mataanay ka hadlaysaaba ayadan 47 ah ama waxaan dhihi lahay maxay hato ii sheegeen labadan waxa la yiraahdaa waxa jira waxa la yiraahdo chromosome 2 waxa la yiraahdaa jira oo qaybta labaad ee chromosomyada oo bini'aadamku qaybtu ka abuurmo qaybta labaad waxa la yiraahdaa waxay xambaarsan tahay macluumaad siyaada iyo xambaarsan tahay la yiraahdaa marka taasna macquul weeyaan waxa kale suuragal ah ukunta naftirkeeda wax fara badan laba inay yihiin macquul ay tilmaamayso macnaha cilmiye fara badan ayaa meeshaas ku jira iyada naftirkeeda tii kaleeto haddaan ku laabano oo iyadana sidoo kaleeta waxay sheegaysaa haddii aan 81 qaybino oo aan u qaybino 7 waxa soo baxaya 11.5 iyada naftirkeedu maxay tahay wallahu a'lam xaqiiqada laakiin waxay yiraahdaan culimada saynisku chromosomadu waxay ka kooban yihiin 0.05 micrometer lagu dhuftay 23 1.15 annaguna maxaan helnay 11.5 ayaan helnay haddii la 10 jibaaro sida anagu aan helnay noqonaysaa 10 aan ku dhuftay 11.5 ay noqonaysaa marka marnaba caadi maahan waa wax macnaha isku dhow oo la yaab la weeyaan oo macnaha ma dhihi karo sayniska ayaa macnaha xukumaya quraanka ayaa saxsan mar walba laakiin cilmiyada meeshan ku jira sida aan uga helnay 46 xaraf meeshan inay tahay iyo 47 xaraf walaalayaal wax caadiya ma runtii wax macnaha wax mucjisa weeyaan waxa kale ku jira cilmiye kale fara badan ayaa ku jira meesha waxaan isku daraynaa aayadaha nambarkooda iyo suuradda nambarkeeda iyo tirada xuruufta halkan iyo ta kalaba tanan xisaabinaynaa waxa weeyaan 7 lagu daray 81 lagu daray 46 tii kalan tegaynaa 27 lagu daray 55 lagu daray 47 tan 47 weeyaan qof walba waa tiri karaa qofkii doona wuu tiri karaa hadda sidaas u tiriseen 47 ay idin noqon doontaa haddii ilaahay yiraahdo waxay noqotay 263 ay noqotay haddii aan fahmay oo ay xaqiiqatan inaan fahmay waxaan fahmayaa anigu inay tahay maalmo 263 maalmood markuu jiro canugu ayuu dhashaa simbal waxaan u qaybinayaa bisha oo aan leeyahay 29
dhibic 5 ayay noqonaysaa ama dhibic 4 meelahaasay noqotaa waxay noqotay 8 bilood iyo 91 oo macnaheedu yahay 9 bilood oo 8 maalmood qiyaastii la wax noocaasa ayay noqonaysaa 8 maalmood maahan waxay habeenay laadahay habeenay yar ay laadahay ama saacado weeyaan waxaanu 9 almost waa 10 macnaha waxay noqonaysaa 9 bilood oo dhow weeyaan wax yar ka dhiman marka sidaas ay 9 bilood ku tahay haddii aad sida kale u fiiriso oo tiraahdo 263 loo qaybiyay 30.5 oo bisha bil qorxeedka ah sidaas iyaduna noqonaysaa waxay noqonaysaa 8 bilood iyo 3 asbuuc ku dhawaaday noqonaysaa canugu cimrigiisu markuu intaa jiro ayuu adduunyada yimaadaa iyo macluumaad kale oo fara badan oo tiradii ka batay ayaa ka sii buuxa haddii la isticmaalo qaabka aayadaha quraanka loo saaray iyo maxay ahaato aayadaha nambarkooda labadaba tirada suuradaha iyo aayadaha nambar suuradaha iyo xuruuftan haddii la isku jajabiyo oo laga raadiyo macnaha wax macno weyn sameynaya wax fara badan ayaa meeshaas laga arki karaa isleeyahay macnaha cilmigaygu ma ahan mid daqiiqa 100% laakiin waa information guud oo aan ku dhiirigelinayo dhihi lahay dadka aqoonta durugsan u leh meelahan oo kaleeto wax fara badan ay ummadda islaamkan uga faa'iideey karaan maxay tahay inay ka barakaraan iyagana firkoodu intaas ayaan jeclaysan inaan soo gudbiyo haddii aan xaq sheegay ilaahay baa waafajiyay subxaanahu wa ta'aala haddii aan wax qaldayna rabbiga cafisaan weydiisanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh